wax walbo dhac qayma ka saa ku kaco aniga dhulkan waan u baahanay dalaal waa in la waca dhulkana la soo qaymeeyo ka bacdi adiga muwaalanta kaale ninkaas singaani aqoon mu leedahay tobanka qof ee dalkeena intii ugu taajirsanaya ku jira ninkaas lacagaha uu bishii canshuurta u dhiibo gobolkeena Maharashtra way ku aadaa 6 bilood in ciidanka la siiyo marka waa rag ay dawladda ku taagan tahay nin kamid ah marka laguma fududaan karo taliye waxaad ogaataa ninkaasi shakhsiga uusan garabsan hatta siyaasadda kuma beeri karo war dawladda hatta isaga ka awood badan hadduu doono dawladda 24 saac ayuu ku baabiin karaa kuna burburin karaa ninkan waa nin khatar ah waliba ma ogtahay gobolkeena waxyaabaha uu ninkaas u qabtay dadka iskoolaad buu dhisay goob caafimaad oo fara badan ayuu u istaajiyay dadka dhibaataysan marka dadka qaar haddii aad ninkaas kala hadasho baladkoo dhan inay ku mudaharaadaan ayaa macquula marka ka fiirso war horta hore adiga ma ogtahay ninkan sangaaniya haddii aad dadka loo istaagto tiraahdo ninkan burcad ayuu gacan saar leeyahay inay dadku u qoslayaan booliiskana taas sharaf dhacay u tahay marka war horta hore adiga ma ogtahay ninkan sangaaniya haddii aad dadka loo istaagto tiraahdo ninkan burcad ayuu gacan saar leeyahay inay dadku u qoslayaan booliiskana taas sharaf dhacay u tahay marka naga daa waxaan u weydin fawdan iyo qaskan aan u bilaabin booliiska sharaftooda sumcadooda iyada ma sareysa hadda ii sheeg bal sharaf dhacana wuxuu yimaadaa qofka sharaf leh midda kale dadweynaha dhan adduunweynaha dhan waa laga ogaay shacabweynaha booliiska inaysan taageerin ay taageeraan tuugada waxay aad u xiiseeyaan tuugada waxaa dhacayso nin masaakiin in wax laga soo xado isagana uu yimaado saldhigga booliiska uu soo dacwado meesha laga soo dhaweyn lahaa waxaa loola dhaqmayaa sida nin burcadkiiba isaga yahay waxaan dhahayaa meesha maxaa ka doontay meeqa lacagaa weedtay lacagtaan dhan xaggee ka keentay su-aasha markii laga badiyo ninka soo dacwada wuu isku aamusaya markaasaa leeyahay orod cabitaan noo doon cabitaan iyo sigaar ayaa loo dirsanaya intuu maqan yahay askartu way shirayaan markaasay dhahayaan yaa dhacay raaju maa dhacay may raaju gobolkuu jira alloora baandhe ayaa dhacay oo khatar ah baandhe ayaa loo yeerayaa ilan lama xiraye waxaa la rabaa lacagtuu dhacay leeja ahaan haaf in looga qaado marka sharcigeena sharaftiisa iyo sumcaddiisa sidaan filayo kor ayaa loo qaaday mise waa beentay matalan qof gaari wata ayaa shaqo cararaya samaafara ayuu xoogaa gudbayaa markaasuu taraafikaa leeyahay waryaa qalad weyn ayaad gashay sharciga ayaad jebisay leesankaa keen nalka ma shaqaynaa lugta hawo ma ku jirtaa baasii ma kuu buuxaa waxaaba loo su'aalayaa sida nin xuduudda gudbay oo kale war askarigaas ama taraafikaas oo ninkaas su'aalaya sharciga uma shaqaynayo ee naftiisa ayuu u shaqaynayaa 20 rubi ama 50 rubi haddii la siiyo wuu iska aamusayaa sharciga sharaftiisa sumcaddiisana kor ayuu u qaaday ciidanka booliska waxaa ku jira dad badan oo rufiyaaniin ah una shaqeeya dadka burcadda waxay doonaan u sameeya oo amarkooda qaata marka dadkaas sharaftiisa sumcadda booliska kor ayay u qaadaysaa filan habeenii maalin burcadda waddankayna ku soo badanaysa taasna annaga ayaa u sabab ah ninka shalay jeesiibka ahaa maanta balaan cad ayuu wax ku dalayaa taasna annaga ayaa u sabab ah ninka shalay daroolada ka ganacsanaya maanta hub ayuu ka ganacsanayaa taasna annaga ayaa u sabab ah annaga ayaa u sabab ah dad baa waxay baabi'inayaan shacabka maatada annaga noo ku fiirsana hadhowna waddanka ay gubayaan taasna annaga ayaa u sabab ah annaga bisha markay dhammaato bisha dambe bilowgeeda annaga waynu baxaynaa waxaynu doonanaynaa mishaar lacagtaas dawladda maa keento waa maya dibadda maynoogu timid waa maya siyaasiyiinta maa dhiiba waa maya waa lacag shicibka laga soo qaaday shicibka ayaa dhiibay weliba shicibka aan annaga si fiican ula hadlin weeye dad badan ayaa jira oo ciidan loo qoray oo xuduudda la geeyey dadkaas waajibkooda si fiican ay ugu soo baxaan cadowgana way naga dhiciyaan laakiinse annaga waajibkeena si fiican uma gudano sharafta iyo sumcadda booliska uu leeyahayna waan ku cayaarnaa qof ciidanka xuduudda ka tirsan hadduu dhinto dadweynaha oo dhan way oynayaan laakiinse qof booliska ka tirsan hadduu dhinto dadka ma oynayaan ay waxay ku leeyihiin ha dhinto waayo murug ayaa naga dhimatay laakiin may waa inaan nidaam ka beddelnaa annaga waa inaan isbeddelnaa si dadweynaha annaga ay noo jeclaadaan derbiyada in waraaqo lagu dharijiyo jornaadadan in wax lagu soo daawaco taas xal noo noqon maysa haddii aanan boolis nahay hadda annaga waxaana loogu baahanyay haddaynu boolis nahay booliska awooddiisa iyo sharaftiisa sumcaddiisa inaan tusino dadka tuugada tuug yar ha ahaado ama sida sinqaaniya oo kale waa inaan tusino awoodda booliska uu leeyahay markaas dadweynaha wayna jeclaanayaan tuugadana waynaga dambaynayaan marka waa inaan arrinteenu wax ka qabanaa